filimkan maanta idin wada asxaabta waa Peaky Blinders waxaana atoraka ninka caanka ah Thomas Shelby reer TikTokna u yaqaana Sigma. Asxaabta filimkan waxaan ka sameyn doonaa 6 qaybood. Waxaana ogaataan asxaabta filimkan inuu ka kooban yahay 6 season walbana uu soconayaa 1 saac. Sidaa darteed season walba waxaan ku soo koobi doonaa wax ka yar 10 daqiiqo. Filimkanna waxa iga socodsaday qaar ka mid ah asxaabta. Waxaana ogaataan asxaabta markasta in codsigiina uu shaqeynayo. idinkana filimka jeceshiin ugu reeba commentiga. Anigana waxa balan ugu ah inaan filimkaas idin soo koobo. Filimka qaybtiisa koowaad waxaan arkaynaa gabadh la ordaysa cunug yar. ayadana waxay dadku weydiisanaysaa in ilmaheeda yar ay siiyaan caano. waxaana jiray nin aad u eegay oo gabadha kala socday korka. kadibna waxa uu imanaya gabadha waxaana weydiinaya halka ay ka keentay cunuga yar. isla markaana waxaan arkaynaa in Thomas uu soo galay magaalada. dadkana dhammaantood waa kuwo ka baqay waxaana ka cararayeen Thomasna waxa uu hogaamiye ka yahay burcad lagu magacaabo Peaky Blinders. Peaky Blindersna waxa ay gaangiska ugu adag magaalada. ayagana waxay magaalada ku haysteen xoog. kadibna Thomas waxa uu imanaya gabadhii markii hore wadatay cunuga yar. ayadana waxay faraskiisa ku daadinaysaa budacaas. waxaanay Thomas u sheegaysaa inuu guuleysanayo. Thomasna waa iskaga dhaqaaqaya waxaanu imanayaa goobta laga maamulo ganacsigiisa. goobtaana waa goobta laga maamulo Peaky Blinders ganacsigooda. ayagana waxay halkan ka maamulaan waxyaabaha ay dadka ka soo xadaan. intaa kadib Thomas waxa uu yeedhay walaalkii ka weyn oo lagu magacaabo Outer waxa uu weydiinayaa sababta uu faraskiisa ugu shubay budada cas. waxaana uu sheegayaa inuu iska daayay sixirkii qurufaadka uu aaminsan yahay Shiinaha. Outerna waxa uu sheegay inuu mar ku dhici doono dab in ay u dhigaan Shiinaha. isagana waxa uu sheegayaa inuu iska dhaafo. laakiin Thomas waxa uu iskaga tagaya isagoo ka aamusan. intaa kadib Thomas waxa uu tagayaa walaalkii ka yar oo lagu magacaabo Finn. Thomasna waxa uu markasta ka fikiraa walaalkiis ka yar ee Finn maadaama isaga ugu yar yahay qoyska. intaa kadib Thomas waxa uu imanayaa bar uu asaga lahaa. waxaanu halkaas ka cabayaa cabitaan. isagana waxa uu korka kala socday mid ka mid ah shaqaalihiisa. intaa kadib waxa uu imanayaa nin lagu magacaabo Freddyna waxa uu ah saaxiibka ugu dhow ee Thomas Shelby. waxaana uu sheegayaa inuu jiro askari dhar cad kaasoo dabagal ku sameynaya kooxdiisa. laakiin Thomas waxba kama soo qaadaya hadalkiisa. intaa kadibna waxaa si kadis ah u soo galaya nin ka soo horjeeda kooxda Peaky Blinders. Thomasna waa uu qabanaya waxaanu sheegay inaanu mar dambe soo galin baarkiisa. sidoo kale waxa uu sheegay inuu siinayo digniintiisii u dambeysay. waxaana uu sheegay in haddii qof ka mid ah kooxdiisa uu dhibaato soo gaarsiiyo inuu dili doono. intaa kadibna waxaan arkaynaa askari lagu magacaabo Campbell. waxaanu hayay fayl sir ah. faylkana waxaa ku qornaa ganacsi walba oo sharci darro ah. sidoo kale waxaa ku qornaa xubnaha Peaky Blinders. waxaana jiray kiis xatooya oo lagu haystay Outer laakiin muu jirin qof ku cadaynaya in kiiskaas uu geystay Outer. intaa kadib waxaan arkaynaa gabadh lagu magacaabo Aunt waxayna baaskoolad ku haysay Thomas walaalkii ka yar. ayadana waxay ku haysatay qaabka xun ula dhaqmayo tiimka. waxaana u sheegaysaa in tiimka uu si fiican ula dhaqmo. kadibna waxaan ogaanaynaa in qoyska oo dhan ay yihiin gaangistaro marka laga reebo cunuga yar lagu magacaabo Finn. qoyskana waxaa weyn Outer waxaana ku xiga Thomas Shelby. waxaana ka sii yar walaalkood John Shelby iyo walaashood Ada iyo cunuga ugu yar qoyska oo dhan kaasoo lagu magacaabo Finn. qoyska oo dhanna waxaa korka ka maamulo Polly waxaana ka mid tahay la taliyaha qoyska oo dhan. intaa kadibna Outer waxa uu sheegaya qoyska inuu jiro askari dabagelaya kooxda Peaky Blinders. waxaana uu sheegay in dadkii ka soo horjeeday oo dhan uu ka dhigay saraakiil si ayagana ay u baabiyaan kooxda Peaky Blinders. intaa kadib Thomas waxa uu la kulmayaa Pollyna waxay weydiinaysaa waxa uu qabtay maalmihii u dambeeyay. isagana waxa uu sheegay inuu arkay wax uu la yaabay. waxaana uu sheegay in asaga iyo kooxdiisa ay u baxeen inay soo xadaan mootooyin. waxaana uu sheegay in kooxdiisa halkaas ay ku arkeen hub aad u fara badan. markii ay dabagaleen inay raadiyeen kadibna ay ogaadeen in hubkaas loo wada Liibiya. hubkaasna ay leedahay shirkad lagu magacaabo RSA. Thomasna waxa uu sheegay in hubkaas iminka uu gacanta ku hayo. Pollyna way ka caroonaysaa waxaana u sheegaysaa in sababta ay booliska u raadinayaan ay tahay hubka ay soo qaadeen. waxaana u sheegaysaa in hubka ay dhigaan meel fudud ay booliska ka qaataan hadhow. laakiin Thomas waa uu ka diidayaa waxaana uu sheegay in hubkan uu geyn doono 3 meelood booliskana ay ku wareerayaan. waxaana uu sheegayaa in aanay booliska soo qaban karin meelaha uu dhigi doono hubka. intaa kadibna Thomas waa uu soo baxayaa. habeenkiina Ada waxay la kulmaysaa Thomas saaxiibkii Freddy. waxaana jirtay sir ay ka qarin jirtay Ada walaalkeed Thomas. sirtaasina waxa ahayd in Ada ay jeceshahay Thomas saaxiibkii. Freddyna waxa uu mid markasta Ada weydiiyey wax ku saabsan kooxda Peaky Blinders. maalinkii xiga waxaan arkaynaa in magaalada ay soo gashay gabadh cusub. ayadana waxaa lagu magacaabay Gracena isla markiiba waxay imanaysaa baarkii uu lahaa Thomas. ayadana waxa uu imanaysaa Harry kaas oo maamulo ka ahaa baarka. Gracena waxay ka codsanaysaa Harry inuu shaqo siiyo. isaga laakiin waa uu ka diidaya waxaana uu sheegay in sharafteeda ay ku waayso shaqadan. laakiin Grace waa ay ku adkaynaysaa waxayna u sheegaysaa in ay tahay fanaanad weyn taas oo heesi kartaa. ayadana waxay u sheegaysaa in dad badan ay ku soo xidhaysaa haddii uu ogolaado shaqada. in badan ay murmayeen kadib Harry waa uu ka ogolaanayaa. ayadana waxay baarka ka qabanaysaa shaqadeedii ugu horreysay. intaa kadib waxaan arkaynaa habeenkii Outer oo soo kaxaystay 2 gabdhood. isagana waxa uu imanayaa xalfad. laakiin waxaa qabanaya booliska oo waxa uu ahaa dab in loo dhigay Outerna waxaa la keenayaa saldhigga. kadibna waxaa la weydiinayaa hubkii la xaday wax ku saabsan. laakiin isaga waxa uu sheegay in kooxdiisa iyo isagaba aysan waxba ka ogeyn. booliskana waxay si xun u garaacayaan Outer laakiin Outer waxa uu sheegay in aanu ku lug lahayn hubkaas
Thomas la soo xaday. Intaa kadibna booliiska waxay u soo jeedinayaan in ayaga uu la shaqeeyo. Asagana waa uu ka ogolaanaya booliiskana waxay soo daynayaan Outer. Outerna waxa uu guriga imanaya isagoo oo dhaawac badan uu ka muuqdo. Intaa kadibna waxaa imanaya Thomas. Thomasna waxa uu bilaabay in uu dhayo dhaawacyadii ku yaalay Outer. Outer waxa uu ka shakiyay walaalkii Thomas. Waxaana uu sheegay in sababta ugu weyn ay u raadinayaan booliiska ay tahay hubkaas. Mar kale waxaan arkaynaa Grace oo ka heesaysa baarka. Isla markaana waxaan arkaynaa Thomas iyo kooxdiisa kuwaas oo soo galay baarka. Grace-na naxdin darteed waxay joojinaysaa heestii ay waday. Ayadana waxay ka naxaysaa markii ay aragto Thomas oo ay la socdaan gaangis fara badan. Intaa kadib Grace marka ay shaqada dhamaysay Harry waxa uu sheegayaa in Thomas uu yahay ninka iskala baarka. Sidoo kale waxa uu sheegay in Thomas ay ixtiraamto. Maalinkii xiga waxaan arkaynaa Danny oo weerarsan oo wadooyinka ku dhacdhacaya. Intaa kadibna mid ka mid ah dadweynaha ayaa waxa uu ku sheegaya inuu waalan yahay. Isagana waa uu qabanaya waxaanu dilayaa ninka. Intaa kadibna Danny meesha waa iskaga cararaya. Intaa kadibna waxaan arkaynaa booliiska oo iskugu yimid shir. Colonel Gamble-na waxa uu sheegaya in dhammaantood ay korka kala socdaan Peaky Blinders, kuwaas oo looga shakisan yahay inay xadeen hubkii loo waday Liibiya. Mar kale waxaan arkaynaa Campbell oo la kulmay nin lagu magacaabo Winston. Isagana waxa uu kala hadlay wax ku saabsan hubkii la xaday. Sidoo kale Winston waxa uu sheegay in aanu rabin in saxaafadda ay ogaato. Waxaanu Campbell u sheegay in hawshiisa uu ku dhameeyay si qarsoodi ah. Isla habeenkiina waxaan arkaynaa Thomas oo ku wareejiyay hubkii soo xaday adeerkii Charlie. Waxaanu u sheegay in hubkan uu geeyo London. Subaxii xigay waxaan ogaanaynaa Grace oo la kulantay Colonel Campbell. Waxaanan ogaanaynaa in Grace ay tahay jaajuus, taas oo loo soo xil saaray inay soo jaajuusto Peaky Blinders. Ayadana waxa u sheegaysaa xubnihii ay ku soo aragtay baarka. Waxaana u sheegaysaa in Outer uu yahay hogaamiyaha Peaky Blinders. Laakiin asaga waa uu ka diidaya waxaana u sheegaya in Thomas uu yahay hogaamiyaha Peaky Blinders. Sidoo kale Colonel Campbell waxa uu sheegay in ay la socotaan dhaqdhaqaaqa uu sameynayo Thomas Shelby. Intaa kadibna waxaan arkaynaa Thomas iyo Danny oo isla socda. Thomasna waxa uu sheegaya inuu dilayo maadaama asaga uu ku dhex dilay qof magaalada. Danny-na waxa uu ka baryayaa inuu iska dhaafo. Laakiin dadka magaalada ayaa u sheegay in Thomas uu dilo Danny. Intaa kadibna Thomas waxa uu tooganayaa Danny. Habeenkiina waxa uu la kulmayaa walaalkii ka weynaya Outer. Outerna waxa uu sheegay inuu ku soo guuleystay tartankii faraska. Ayagana waxay halkaas ku cabeeyeen xoogaa cabitaan ah. Isla markaana waxaan arkaynaa in Danny uu weli nool yahay. Thomasna uu siiyay fursad kale. Waxaanu ku sii daray adeerkii Charlie, kaas oo u diray London. Waxaanu Danny u sheegay in aanu weligii magaalada ku soo noqon, maadaama Danny yahay qof ka dhintay magaalada. Intaa kadib Thomas marka uu ka soo baxo walaalkii Outer, waxaan arkaynaa in Grace ay dusha kala socoto Thomas Shelby, taas oo ah sirdoon loo soo diray inay la socoto Thomas. Haddaba asxaabta filimkeena qaybtiisa koowaad halkaas ayay ku eg tahay. Hana ilaawin inaad muuqaalka like saarto. Sidoo kale channelka subscribe dhahdo si aad ula socotid muuqaalkan qaybtiisa labaad. Waa inoo muuqaalkan muuqaalka xiga.